inta gabar la koriyo la kolkolinayo sharaf iyo karaama leh abiyo ninkii kibidh kufsi ula badheedho inakii xumaa tahay kariyo xanuun tahay kansara dawa lahay kun jeer aad ka daran tahay kismalaawihiyow xigmad adiga ka maqan aan ku cadeeye kow hooyada iyo kowsar habaayarta iyo kaha eedada iyo inta kula walaala in xumaa lagula koxo kismalaawa ma ogolidey kismalaawa ma ogolidey kasar baad inagu tahay kalxanta inooga yaale waana layska kaajadhayaa kismalaawa ma ogolidey inta gabar la koriyo la kolkolinayo sharaf iyo karaama leh abiyo ninkii kibir kufsi ula badheero inaad kii xumaa tahay kariyo xanuun tahay kansar aad dawa lahayn kun jeer aad ka daran tahay kismalaawihiyow xigmad adiga ka maqan aan ku cadeeye kow hooyada iyo kowsar habaayarta iyo kaha eedada iyo inta kula walaala in xumaa lagula koxo kismalaawa ma ogolidey kismalaawa ma ogolidey heestan kismalaawa waaye waxaa hor u qaaday cashikin cilmi xaashi soo maanta anina waxaan igu soo qaatay kismalaawaha ma ogolo hooyadiisa in la kufsado habrartiisa in la kufsado kaha eedadiisa in la kufsado ma fahanteen walaashiis in la kufsado la xumay laakiin gabdhaha kale oo dhigiisa oo Soomaaliyeed oo walaalihiisa kale hooyooyinkiisa oo kale sidoo ugu quuray inuu kufsado waa kismalaawa aqli ma lahan ku filan kismalaawa kufsiga waa kaariya xanuun kasar ayuu noogu yahay kalxanta noogu yaal Soomaaliye waa inaan iska jarnaa oo iska reebnaa soo saas darteed ayaan idinkugu soo qaatay heestan waxaa la dhahaa kismalaawe kansar ayaa nagu tahay kalxanta noogu yaalo waa la iska gaajarayaa kow hooyada iyo kowsar habayarta iyo kaha eedada iyo inta kula walaala in xumaa lagula kaco kismalaawa ma ogolide marka sidee waay walaasha hooyada habaryarta adiga dadka xigtadaada uma ogolid dhibaato laakiin dadka kale ee walaalaha Soomaaliyeed gabdhahooda oo aabiyo sharaf iyo karaamo lagu soo koriyay oo la kolkolinayo sida kuwaad ugu jirnaxeysoo kale ayaa ayagana ehelkooda ugu jirnaa saw kuwaada maribta inuu dhibkaa gaaro ayagana waa inaad dhibaateynina marka kufsiga waa wax aad u xun kufsiga waa wax aad u xun ruuxantii heestan kismalaawa maanta waxaa usoo qaatana waxay tahay inaan ka wacyigeliyo bulshada soo heestan hore waxaa u qaaday gabar Soomaaliyeed oo wacyigeli ahaan usoo saartay soo gabadhu waa gabar sharaf leh waxay leedahay heesta inta gabar la koriyo la kolkolinayo sharaf iyo karaama leh abiyo ninkii kibir kufsi ula badheedho inakii xumaa tahay muxuu ahaa waay kii xumaa inaad kii xumaa tahay kariyo xanuun tahay muxuu ahaa waay kariyo xanuun kufsigu waa kariyo xanuun kansaaran dawa lahayn kun jeer aad kada muxuu ahaa waay de waxa kufsiga qofka markii la kufsado wuxuu dareemayaa murugo fara badan asiga dhan depression ku dhacayo xanuuno xaalada oo hore u qabin ayaa la soo darsayo qofkaas murug ayuu ku noolaanayaa anytime qof wuxuu noqonayaa qof murugeysan qof asiga dhan maqan qof mar walba xanuunkii ku dhaca xasuusta ayuu noqonayaa marka Soomaaliya ma ka wada tashateen oo ma isdhahdeen xanuunkaas sidee loo yareyn karaa ama loo baabi'i karaa dadka kismalaawaha ee dumarka tacdiyada u geysto waa arrin u baahan in laga wada hadlo wali ma arkin Soomaaliya meel oo looga hadlayo xuquuqda dumarka gaar ahaan kuwa tacdiyada loo geysto mana ku arkay Soomaaliya
mana ku arkay Soomaaliya dad tacdiid kasta oo la marinayo wadada xaqa ah si kufsiga u yaraado. waxa fiican qof walba oo dambiile ah dambigiisa inuu mara. dumarkana ma ahan in la dhibaateeyo. waa taa aniga qabo oo aan aaminsanahay. waa midda aniga qabo samir ahaanteeda aan aaminsanahay. dumarka ma ahan in la dhibaateeyo. dumarku waa bini'aadmigiido. dumarka iyo caruurta oo kale ma ahan wax la taaban karo ama loo dhawaan karo. waa dad naga mudan xushmad, ilaalin iyo ixtiraam. inkastoo bulshadoo dhan xushmada ay wada mudan tahay inay is ixtiraamto, haddana dumarka si khaas in loo sii ilaaliyo waay. haddaan nahnay Soomaaliya, Soomaalideeda ayaa la hadlayaa bulshada ku xiran barta YouTube-kayga. codkayga waa idinka raaligelinayaa, waa higabsanahay. hadda wax codkayga si kale ka dareentaha waa idinka raaligelinayaa. dumarka in la ixtiraamo wax aad iyo aad u wanaagsan. dumarku waa hooyooyinkiina, waa walaalihiina. ragow, dumarka waa dhali doontaan, gabar waa dhali doontaa. nin walba wuxuu geysto kolley hadhowti asun bay ka go'anta. nin walba waxaad geysato adun bay ka go'anta. ama ifka lagaaga soo saar ama aakhira lagaaga miis ama ifka lagaaga soo saar. nin walba wanaag falo ayaan dhihi lahaa aniga. nin walba oo Soomaaliya wanaaga aa maanta falato bari waa arkaysaa hooskiisa harsanaysa. nin walba oo Soomaaliya oo gabar wanaajiyo bari gabadhiisa waa la wanaajinayaa. maxaa idin dhahay? nin walba oo Soomaaliya codkayga soo gaaro gabar walaasha middaa shukaansanaysa noqoto, gabar kaloo wala caawi u naxariiso. ilaahayna wuu ku naxariisanaa adduun iyo aakhiro. gabadha adigana aad dhashidna waa loo naxariisanaa. midda kula dhalata si wanaaga lagu dhaqmaaya. marka mar walba aan noqono dad wanaag isku dadaaramo oo isku naxariista, in ilaahayna u naxariisto adduun iyo aakhiro. dumarka qaasatan ha loo dhimriyo, ha loo naxariisto. waa hooyooyinkiina, waa walaalihiina, waa idinla dhashteen, waa idin dhexi doonaan. oolaad baa keelaysin. gabdhahaad aabba dhihi doonto, aabba aad dhihi doontiin. ubixi soo saari lahaa maanta haddaad dhaawacdo bari xagee kuu ciirsiya. ninna waa inuu iska dhaawicin, ninna waa inuu isku dhaawicin halka hoygiisa ah. dumarku waa hoygiina, waa harkiina, wax walba idin yihiin. ma fahanti? duuni waa dumar. adduun dumar la-aan shaqeeyana ma jiro caalamka. wax walbana dumarka ayaa number 1 la siiyaa. dumarka number 1 ka dhigta ragga Soomaaliyeed oo ixtiraama. dhammaantii waa ogaa dad qurux badan oo qalbiyo fiican ayaa idinka buuxo. laakiin in xun oo waxaa jirto kasmalaawo ah. kasmalaawo iska daa. kasmalaawnimada iska daa. dambiye haddaa shal hore u kici jirto oo lagugu canqaabi jiray, raxmadda ilaahay waa ilaahay waqfuur raxiim. u toobadkeen oo dambigaaga halkaada ku jooji. oo gabdhaha walaalaha ha dhibaateen oo ha kufsan. birka maalin waxay ka jaran tahay adigu dhasho. musiibo ka weyn ma jirto inaad gabar Soomaaliyeed oo walaasha ah kufsato oo future lahayd oo nolol lahayd oo hami lahayd aad qalbi jabiso. murug ayay ku noolaanaysaa inta cimrigeeda ka dhiman. adina marka maxaa kugu dhici doona waaye su'aasha meesha taagan. nin walbo daryeel naftaada. walaasha daryeel. si walaasha daryeel. gabar Soomaaliyeed hadaa daryeesho walaasha adoo daryeel. walaashaan daryeel fiican ay helaysaa. nin walbo gabar Soomaaliyeed oo walaashiisa ha u naxariisto. meesha wanaagsan walaashiis booska uu la rabane ha geli gabadhu, ama xiriir kala dhaxeeyo ama xataa yuu garan gabadha u arko caawinad u baahan ha caawiyo. ha la isku naxariista waa muhiimada. marka kasmalaawo wax fiican ma ahan. kufsiguna waa wax fiican ma ahan. anu ahaan waxaa qabaa kufsiga in meel la iska saaro, la iska dabar jiro. waayo dawo nooma ahan. waa dibidaabyo dumar. waa dhibaato dumar. saan xal nooma aha Soomaaliya. anigu waa idinka wacyigelinaya kufsiga lama soo marsii karo. waa necbahay kufsi. aad ugu xumahay dumarka Soomaaliyeed waxyaabaha gaaraya. maanta hadda awoodo kufsigaas inaan baabi'iyo ka saaro Soomaaliya guud ahaan.